كوري بقص على نتبغله دمانتين ما قرتين بسم الله الرحمن الرحيم وحنو ملينا يا دمان وحنو سوني من نصود وينو مدحوينها عسير لان oo inoo yimi galabtay sida daraadeed waxa weeye dhamaan rag iyo dumar arday waxgarad dadkeena waaweyn oo dhan waxgaradka oo dhan duqeyda kulli ciidamada kulli waxaan u soo dhaweynaynaa madaxweynaheena baynu soo dhaweynaynaa oo waxaan u soo dhaweynaynaa inuu galabtay inoo imanayo ogeyn oo ka imanayo xagga caluule sida daraadeed waxaan u baahanahay in iyaga iyo isaga iyo waqtigiisa la socda bal waxay inoo wadaanin iyo arrimaheeda aynu ogaano oo dhageysano wuxuu inoo sheegayaan ma garateen بسم الله الرحمن الرحيم وحان ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa farxad weyn noo ah inaan nimaadno degmada bareeda oo ah markii saddexaad markii ugu horeysay waxaanu ku nimi annagoo ah guddiga xaqiiqa raadinta mar labaad waxaanu nimi annagoo ah guddiga dhismaha degmada bareeda maantana waxaanu nimi annagoo ah dawlad maalintii ugu horeysay ilaa maantay bareedu waxa weeye maalinba maalinta ka dambaysa waa ka daran tahay soo dhaweynteedu waxa weeye waa waxaan ku cabiro garan maayo inaan idinka mahad celiyo soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh waxaan idin sheegayaa waxaynu nahay inaynu noqonay maamul goboleed la magaca baxay raasi caseer maamul goboleedkaasi wuxuu ka kooban yahay laba gobol oo la kala yidhaahdo Bina iyo Boorimoog gobolka Bina magaalo madaxdiisu waa magaalada Baargaal gobolka Boorimoogna magaalo madaxdiisu waa Caluule waxaynu mar haddaynu noqonay inaynu isku dooranay inaynu maamul noqono oo dawlad samaysano waxaa laynoo ka baahan yahay shaqo adag midnimo inaynu u diyaar garowno inaynu dhisno deegaankeena waxaa laynoo ka baahan yahay inagoo isku tiirsan dhammaanteen inaynu isu taagno inaynu dhisno maamul goboleedka raas caseer wax sababaha aynu u dooranay inaynu maamul madax bannaan noqono waxaad la socotaan in uu ka dhacay shirweyne magaalada Baargaal oo socday ilaa 6 bari shirweynahaas oo lagu soo go'aamiyay in dawlad aynu ka mid ahayn Puntland inaynu ka codsano inaynu gobol helo Puntland markii loo tagay oo laga sugaayay gobol inaynu gobol leena siiyo iska daaye waxa ina ka soo gaaray waxayna filaynin waxa ay Puntland
dareenkeeda ku cabirtay ama maamulkeeda nimanka uu sareeyaa ay ku cabireen inaynaanba awoodi karin inaynu degmo helo iska daa gobole. taasi waxay keentay inaynu tusno Puntland iyo Soomaaliyeed kaleeto dunida oo dhan inaynu nahay dad leh degaan aad u ballaaran, bad aad u dheer leh, khayraad badan ka buuxaan, ummad rabta inay tusto adduunka inay tahay ummad jirta degaan leh dawladnimo ku caanbaxday inay wax qabato weligoodna dad shaqo ahaayeen. sidaa darteed waxaynu goosanay oo la go'aamiyey inaynu noqono dawlad goboleed la yiraahdo Raas Caseer kuna taal bariga Afrika. mar haddaynu dawlad goboleed noqonay waa inaynu horta marka ugu horeysa ka xorownaa fikirka. haddayna fikirkeena uusan xor ahayn oo aynaan cabiri karin gabadha iyo wiilka, odayga, aqoon-yahanka, siyaasiga, waxgaradka, ciidanku waa inay cabiri karaan ra'yigooda iyo fikirkooda. mar labaad waa inaynu xor ka noqonaa waxa la yiraahdo ganacsiga. waxaanu ka sugaynaa reer Bareeda ama degmada Bareeda in sida ugu dhaqsaha badan ay halkaas soo istaagaan dooniyuhu oo keenaan wixii looga baahnaa, wixii laga rabay dalkana ay ka qaadaan. waxaan kaleeto aan rajaynaynaa inaynu ka xorowno siyaasadda. aad baynu ugu liidanay inaynu ka muuqano goobaha la isugu yimaado ama Soomaaliha ama ummadaha kale ha isugu yimaadeen inaysan ka muuqan deegaanka Raas Caseer. maanta waxaynu diyaar u nahay inaynu ka muuqano meelaha la isugu yimaado oo looga munaaqashoonayo siyaasadda Soomaaliya. waxaynu mar haddaynu noqonay dawlad waa inaynu ballan qaadno inagoo isku duuban in ilmaheenu helo tacliin buuxda, inaynu helo caafimaad taam ah, inaynu la dagaalano waxa la yiraahdo gaajada. waa saddexda cudur ugu waaweyn adduunka oo inaynu ka xorowno saddexdaasba: jahliga iyo aqoon darrida iyo jahliga, caafimaad darrida iyo faqriga. intaba inaynu ka xorowno. taas waxay noo saamaxaysaa waxaynu deganahay degaan aad u khayraad badan oo Ilaahay khayraad ku binaystay, bad dheer leh, kalluun leh, lubaan leh, beero leh, xoolo leh. marka waxa weeye waxaynu u baahanaa inaynu shaqo adag samayno si aynu intaasba u qabano. waxaan hubaa degmada Bareeda iyo dadka degan degmada Bareeda inay heegan u yihiin ama diyaar u yihiin inay wax qabsadaan, inay horumar gaaraan, inay degaankooda horumariyaan, in saddexdii cudur oo aan hadda soo sheegay inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan saddexdaas cudur. annagu aase dawlad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa dawladdu waxa weeye horta aan inii sheegay waxa weeye waxaanu samaynay dawlad ku meel gaar ah. waxaanu hadda diyaarinaynaa oo maanta laga bilaabo Bareedo ugu horeysa ka bilaabaynaa in aan u sheegno in la soo doorto barlamaankii la soo xulo. dabadeedna markaynu barlamaanka soo xulno waxaynu diyaarinaynaa in la doorto gudoomiye baarlamaan. markii la doortana waxaa la dooranayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. dabadeedna waxaa la soo dhisayaa dawladdii. waxaanu jecelahay haddaynu intaa samayno aynu noqonayno dawlad taama. waayo maxaynu saa u samaynaynaa? waa inaynu noqono dimuqraadiyad. waa inaynu tusno adduunka aynaan waxba khiyaamo iyo cadaalad darro iyo midna ay jireen. dadku waa inay doortaan qofkii ay rabaan inuu u shaqeeyo. waa inaynu tusnaa jidka u furnaa carruurteena yararkaa. carruurtu waa inay bartaan waxay tahay dawladnimo. waa inuu ku fekeraa barito inuu noqdo ama wasiir ama madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen ama sarkaal sare. waa inuu ku fekeraa inuu noqdo dhakhtar. waa inuu ku fekeraa inuu noqdo pilot diyaaraha daadihiya. waa inaynu dalkeena ka dhisnaa dekado, aerobooro
iyo jidad waaweyn oo laamiyaal ah cid aynu u baahannahay ilaah maahan cid aynu u baahannahay ma jiro waxaynu u baahannahay inaynu isku kalsoonaano oo muruqeena iyo maalkeena iyo maskaxdeena midayno gelinada dalkeena iyo deegaankeena mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta wanaagsan sida sharafta leh oo had iyo jeer markaanu nimaadno oo bareeda oo aanan hilmaami karin wax la hilmaami karo ma aha waxaan leeyahay inoo rajeynayaa insha Allah ilaahay idankiis guul baa inoo rajeynaya waxaan ilaahay inoo ka baryayaa inaynu raxmad khayr leh oo aynu ku degno oo aynu qaboojiso aynu helo oo aynu baraaro ku gaarno waxaan leeyahay guul bareeda ha guulaysato raasi casayr ha guulaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu